أجر وطهور وشفاء، ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء. لا بأس عليك ولا وجعا، أجر وطهور وشفاء. إلهي بمهدسك سبحانه وتعالى وصوبا لقني رنتي ددكي أن تلماميني إلهي بنا أدومد عافي الهدى ما عافين ولا عدك له مهمة أن ضدك أصوبا لقني ضدك فاهمين حقيقة وحي تهي إن قفك بلا آذن كجرد النول وقادو إن إلهي سبحانه وتعالى وحي يسي يا نبي صلى الله عليه وسلم وحي النوت المامي أي سعونيا لكن وحي خيالية كلا أين سعوني هاي العالم كحسكور راعي ديكركو إنو ندولهين سنكرتو إنو ندولهين. waxaa la yiraahdaa Yunis Iyeri waxaa la igu soo cadeeyay cudurka kansarka sanadkii 2012 waxa aan qaatay dawooyin ay taqaatiirtu siiyaan dadka kansarka waxa aan ku sii noqday daciif sababtoo ah waxa aan qaadanayay cirbadihii kansarka waxa aan la kulmay walaalkaygan waxa aan bilaabay inaan qaato dawooyinka shirkadda Al-Huda markii aan qaatay dawooyinkan muddo 6 bilood ah waxa aan dareemay farqi weyn iyo in aan aad u fiicnaaday waxa aan ku noqday isbitaalkii oo aan dib isu soo baaray halkaasi oo ay ku cadeeyeen inaan qabin cudurkii kansarka oo aan ka bogsaday waxa aan dib ugu laabtay shaqadeydii caadiga ahayd hadda waxa ka soo wareegatay hal sano markii aan bilaabay dawada waxa aan ku dadaalaa inaan ka caawiyo dadka kale oo ka sheeganaya cudurkan inaan gaarsiiyo dawadan aabbahay waxa uu dhintay 2014 cudurka kansarka laakiin waqtigaasi ma aanan aqoon dawooyinkan wax ay tusayna ma aysan jirin waxaan ugu mahad celinayaa Sheekh Farxaan Cali Dhimbil oo si aad ah ii caawiyay maadaama aan dawooyinkan markasta gada karin Allah ha ka abaal mariyo sheekha waxa weeye xanuunkaygu waa kansar intaas oo dhakhtar baan tagay waxa way iga qaban waayeen imika waad baan u fiicanahay inta dawada sheekha aad baan ugu fiicanahay aan dhiig xoog badan baa iiga socday inta imika dawada aan qaatay dhiigii wuu yaraaday isbedel weyn oo caafimaadaan dareemay marka tagu magaalada joogba jaalaan ku noolaa waxa weeye aad baan imika u fiicanahay qolkii dawada sheekha la ii doonay anigu sariir baan soo waalay kala garasho ma lahayn waxba ma ogeyn wax la ii keenay laakiin dawadii markii la siiyay ayaan isbedel weyn sameeyay wax ii soo kordheen imikana alxamdulillah rabbil caalamiin dawadii markaan qaatay waan aniga xafiiska imid ee cagahaygii ku socda kansalkiina waan ka dawoobay alxamdulillah rabbil caalamiin alxamdulillah rabbil caalamiin من عافى أيوب يعافي عبدا